السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد وولالكين أو فيديو عصبني صوّدا walaalyaal waxaa xasuustaan inaan hadda ka hor aniga sheego waxyaalo fiican aan rabo inaan ii sharxo caalamka maanta noo soo socda iyo Soomaaliya waxyaalaha badan la rabo in lagu dhaliyo. Waan ii sharaxay waxaa ka mid ah khaniisnimada in la ogolaado, waxyaalaha wasakhda ah dhan ee gaalada la socoto in la wada ogolaado baa loogu talagalay. Marka mid kale aan iisii sharaxaya. Waa aragteen Yurub ama America in maalmahan dumarka si xun waxbarashadooda loo horumarinayo, nimanka cadaanka iyo naagaha cadaanka ay uga dambeeyaan, dumarka madowga ama weliba kuwa muslimiinta weliba kuwa Soomaalida ah si fiican u dhageysaya, weliba kuwa Soomaalida ah la rabo in si fiican loo caawiyo oo la dhaho xuquuqda dadka dumarka Soomaalida saan si fiican ha loo galo, xuquuqda dadka saan si fiican ha loo galo, oo naagahan maanta xafiisyo la soo wada siinayo. Waxaan rabaa inaad ogaato wasiirada ee la wada baxaya. Waxaan rabaa inaad ogaataan naagtan ma aragtaan Soomaalida ah, naag ma aha, waa lesbian, waa transgender waay. Fiiri, waa transgender. weesuuke fiiri sida lisuukeen soo wada qarinayo ya baarlamaankeena sida la rabo in loo siro. Waa lesbian waay naagtan ya, transgender lesbian, wax nooca ugu xun kuwa indheeda ka arki kartaa, say u dhaqmaysaa ka arki kartaa. Waxbaan soo bartay bay ku leedahay xuquuq wadanka khaniiska. Waa wadan aan khaniis dhan ay joogin, haday joogaan ay hal ama laba ay yihiin ay isqariyaan oo noloshooda rabin inay soo baxaan bay war waxaan bal fiiriyo nacaladan tan hala dilayaa astaghfirullah la dilin hal dharbaaxeeyo timaha laga rifo wasiirnimada laga casilo. Mee maqlaysa qofkii arka Axmed Xuseen Axmed baa ku dalbaday anaana lacagtaada bixinaya dii lagu xiro dowladan anaa telefoon u diraayo dii lagu xiro in lagu soo sii daayo si dhaqso badan. Walaalka cod badan buu leeyahay, ma fahantay? Dadku way wada yaqaanaan meesha, ma fahantay? Marka hadda si dhaqso badana isaga ilaaliya waxyaalahan oo kale walaalayaalow. Waxyaalahan oo kale waxaa ka mid ah waxa caalamkan lagu soo faafinayo LGBT community waxay rabtaa caalamka inay gasho. weliba waxaa la dhahaa LGBT community ma aha khaniisiinta ugu sii dar, pedophilia ugu sii dar, ciyaalka kuwa xooga waaye, ciyaalka Soomaalida laga dhacayo Europe. ciyaalkaas maxaa u malaysaa in loo dhacayo? waxaa la rabaa nin khaniis iyo naag lesbian in loo dhiibo oo cultureka khaniisiinta lesbianka ay ku koriyaan. Tanoo kale laga mid ah inay saas tahay. Marka aniga tan videoga waxaan u sameeyay kali inaan nigala taxadiro, aan rabo inaan niga sheekeeyo naagahan iyo dhaqankooda iyo waxay yihiin. LGBT community dhan waxay u shaqeyso, ma fahantay? Waxay rabaan ciyaalka yaryar inay wasaan, ma fahantay? ciyaalka yaryar isu diyaar khaniisnimadu waa la isku soo qarinaya, waa been. khaniisnimadu waa wax annaga dhaqanka aan u lahayn, ma rabna in qaanuunkeena la geliyo, bugaagteena la geliyo, waxaas dhan ma rabna annaga. Ma maqlaysaan walaalayaal? ma rabna walaalayaal, bal dhegeysta. What's going on, guys? Just a little quick video. Look, if I was going to make a full video, this would be about 5 hours long. No jokes, okay? I've been researching the last month into this Victorian police gay agenda. Now, I'm not attacking police, I'll make that straight now. Most police are pretty good. But there is an activist element within Victoria Police, and I betcha top dollar majority of police would agree with me. Now, it all started with the Victorian Police having an investigation, an internal investigation within their force about homophobia and bullying, etc. They have every right to do it. Comments. Is anybody on my channel right now? Can someone check on my phone? Oh, right. YouTube video unavailable. No, you're on what? Okay. No, I'm on your one. I go to PS4, click on that. No, I'm not, because you're on the video right now. Because I can see my screen pretty clear. I am streaming. You're not streaming anymore. How am I not streaming? I can see I'm streaming on mine. I can hear myself on my own stream. See? I'm talking to myself. Logan, do you know what's going on? Yeah, this game's boo-boo. I can't. This internet is boo-boo. Hey, guys.
So I go on, I'm the same one. I'm just waiting for him to add his guys. I can't refresh anymore on my phone. I can't refresh on my PS4 anymore. It says this YouTube video is unavailable. Try again later. That's weird. This video has been removed by the user. So what you done? Quote unquote, my PS4 was fucked. Hey, Jesse. How are you? For me, it doesn't even say your. Mercado. Today marks the 50th anniversary of the Stonewall Uprising. Police raided the LGBTQ hotspot in Manhattan back in 1969. They assaulted customers and arrested 13 people. But unlike past raids where bar patrons scattered, they stayed and fought back. It's widely known as the moment that sparked the modern LGBTQ rights movement. For that reason, the month of June has unofficially been deemed Pride Month in the U.S. However, this piece of history often isn't taught in schools like many other issues and events that are important to the LGBTQ community. Today, we explore the topic of LGBTQ curriculums in schools. In 2017, GLSEN, or the Gay, Lesbian, and Straight Education Network, found almost 20... marka video ani haya oo nitusinaya dadkan waxa ay nii soo waa naagtan Soomaalida aad arkaysaan waxay nii soo wado baan tusinaya walaal inaan tusi kaliya mooyaane si kale ma jirto moogtahay inaan tusi wax walba ani waxaan jecel dadka inaan tusi wax walba saasa ka fiican si ay u fahmaan waxa u soo socdo wax aanan been u sheegaynin ma jirto naagahan waa naaga daciifiina ninkii cadaankii baa ka baqaay inuu wadankaaga yimaado uu khaniisnimo faafiyo marka wuxuu ku soo helayaa dhilooyin noocaan oo kale ah oo raba adiga inay ku jabiyaan dhageysta videoga walaalayaalo na saa curriculum ya abaydie ahwe ye be kwa gabar afrikaana ka hadlaysa laakiin aniga ma rabo afrikaan u kaadi bal fiirsada dadkan baa hadhow saanay u socotaa fiiri aakhirka LGBT iyo khaniisnimada saanay isu bedelaysaa hadhow ilmaha in la gaadayaa fiiriyaa walaalayaal Everyone born with a vulva is a girl. True or false? Or identifies as a girl. iskoolka lagu baraa khaniisnimo iskoolka ya Hey guys, welcome back to my channel. I feel like I'm dressed for a wedding or something. Listen up, kids and parents. It's time to stop learning about your ABCs and your 1, 2, 3s and get into learning about your LGBTs. Actually, hold on. It's the LGBTTIQQ2, yeah, the number, SA pluses. waa nin That. Alright guys, so today we are responding to this video that is just dreadful. And I don't think I've ever even used that adjective to describe anything, but I can't, that's what came out of my mouth. Sure, we may not even be able to agree on a f***ing acronym, but we're definitely still going to teach your kids everything there is to know. Or everything we make up every other month. Okay. waxay It's a sameeyaan video about LGBT and sex education for kids and girl. 5 sano ciyaalka jira ah sex la baraya 5 sano jiraan You'll see. It's awful. Because of course, right now it's all the rage to teach kids as young as 5 everything there is to know about LGBT. It's interesting how all this new wave of teaching kids about being gay and trans and bi, etc. is actually doing the opposite of what it should be. Acceptance of LGBT people among the younger generation is actually going down for the first time in a very long time. So let's just get to reacting, shall we? You can get these stickers in my merch store, by the way. Hi, I'm Facelift. I use the pronouns she and her. fiiri waxaana ciyaalkiina sex iyo bar ciyaalka Soomaalida I'm iskoolada queer saas waa ya identified. ogow Okay, so a little bit of tea for you guys. This drag queen in the orange hair actually was in a previous video of mine, and they threatened to sue me for talking about them. So we'll see if they threaten to sue again, but try me, bitch. And I am Fluffy Souffle. I use they, them, because I'm a non-binary performer. Of course you are. What are some other sexuality terms that people identify as? Asexual. Asexual, yeah? And that means that it's somebody that might have romantic marka aan nii sharaxo caalamkan cadaanka asuu yahay
pedophilia waxa la dhaho ciyaalka yaryar iyo waxaas laga shaqeeyo waa noloshooda fiiri waa noloshooda dadka nimanka cadaanka dhibaatadooda xuguski yariiski ahaa baa dhibaato u keenaysa waxay noqonaysaa ilmaha yariiska inay raadsadaan iyo wax aan loo joogin wax walba baroobeeyaan xataa dameer ay u tagaan naagahooda eydee la seexdaan naagahooda ya naaga cadaanka ah eydey wasaan fiiri nimanka cadaanka lo'day wasaan eydey wasaan ma fahmaysaan ciyaalkiini keliya meeshaan loo joogaa ciyaalkiiniyaa loo joogaa adduunka fiiriya idinka qaxooti dagaal ka soo sameey wadamadooda qarxi wadamadooda ciyaalkooda yaryaraa helaynaa ya ciyaalkooda yaryar baan helaynaa ciyaalkooda yaryar markaasna waxaan ku korinaynaa dhaqankan waxaan baraynaa waxaan xorriyaan siinaynaa haddaba waddankoodaan geenaynaa hadda fiiri wadamadoodii se usoo xireen hadda waddankoonii noo keenayan afrikay keenayan fiiriya madaxweynihii obama فيريا مدحوينه وصلت مرك ugu horeeyay nin madow oo America madaxweyne oo madow uu soo noqdo uu yimaado Afrika waliba wadanka uu aabiis ka dhashay ya meeshii uu dhihi lahaa wadankayga caafimaadaan ii keenaya wax barasho I've been consistent all across Africa. khaniisnimo rabaa inuu baro uu ku qasba isaga khaniisa I believe in the principle of treating people equally under the law. And that they are deserving of equal protection under the law, and that the state should not discriminate against people based on their sexual orientation. waxay iyaga sameeyeen. And I say that recognizing that there are people who have different religious or cultural beliefs, but the issue is, how does the state operate relative to people? The fact of the matter is that Kenya and the United States, we share so many values. Our common love for democracy, entrepreneurship, value for families. These are things that we share. But there are some things that we must admit we don't share. Our culture, our societies don't accept. It's very difficult for us to be able to impose on people that which they themselves do not accept. This is why I repeatedly say that for Kenyans today, the issue of gay rights is really a non-issue. We want to focus on other areas that are day-to-day living for our people. صح. You see how they're forcing us on our leaders? Yeah, وانا لغو قصبايا. فيريا وانا لغو قصبايا ولا ليال. وبهالله ilmihii dagaalada wadamada waxay u dhacaan ilmaha la soo aruursad maxaa loo aruursada umaleys isxaan loo sameeyay khaniisintiya ilma raba lesbiyankiya ilma raba ilma in la siiyo soo ma rabaan. Welcome to another episode. adi bal isweydii xagee looga keenaya ilmo lesbian iyo ni because Europe nin walba lesbian iyo naag walba gay ah waxay rabaan ilmo xagee looga keenaa قردشم marka waa kaasaa fahan caalamkan in dadkan ay anaga noo soo jeesteen ciyaalkiin marka baarlamaanka Soomaaliya si fiican ay sameeyeen ay u diideen waxyaalaha naloo soo wada aad iyo aad si fiican u sameeyeen baarlamaanka Soomaaliya oo la rabo in anaga khaniisnimada la baro fiiriya dad waalan miya ka war dad waalan anaga rabaan inay na haleeyaan
يا كي أو سومالي كهاد لي برلمانك ما وخن برلمانك وديدي سوماليا وخن يسنمد وها ها ناكتي هيد واتنا نيجي سوعلنا يا ناكتاني هيد صور كذا أو يا لا لا ميجي بعض واتنا وكنا وزير الولاية marka dumarka waxa loo buufinaya la dhahayo ha dumarka xorriyaha la siiyo xafiiska ha la siiyo politika dhex galaan hala shaqeeyaan nimanka waxa kamid ah in la rabo kuwa qaarkood kamid ah lagu soo qarinayo oo la rabo khaniisnimada in la saxiixo iyo waxyaalaha xun oo aan rabin anaga marka fahm qof walba in la ilaaliyo waa nin walba iska aqbalinina anaga waa naqaanaa dadka khaniisnimada wato dadka wax walba wata kelmadahoodan ka soo saari karnaa si u eg yihiin aan ka garan karnaa dowladdeena waxaa jooga dad masaakiin oo daciifiin oo aan shaqada aqoonin oo dadka si loo kala ilaaliyo aqoon niisa naagtan oo kale mar hore inay qabatay ahayd iyadoo xataa baarlamaanka in korin niisa marka way ku dhacday waxyaalahan oo kale taas kaliya rabin inaan ii sheego marka iga raali ahaado